السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن داودياشينا قيمه قدرينتنا كموضا ميل كستو aad joogtaan habeen wanaagsan kuna soo dhawaada mar kale dunida ciyaaraha tube waxaad ku soo dhawaataa falanqaynta kooban oo aanu ka sameyn doono kulankii goordhow soo gabagaboobay ee Barcelona isla markaana ay la kulantay ama kulankii ka tirsanaa koobka boqorka ee Copa del Rey ka Olionesa iyo waliba kooxda Barcelona dhexmaray kulankaasi dabcan Barcelona gurigeeda ma ahayn guriga Olionesa ayaa lagu ciyaaray kulankaasi marka la fiiriyo Barcelona inta badan kooxaha xidigaheeda daada yar ayaa ciyaarayay laakiin xidiga waaweyn ayaa sidoo kale qayb ka ah sida Vidal, Malcom, Dembele iyo xidiga Semedo iyo xidiga kale oo qaarkood badal lagu soo galiyay oo Thermel uu kamid yahay iyo waliba Lenglet ayaa sidoo kale kamid ah marka la fiiriyo Barca wax badan marka la fiiriyo qaabka ay ku soo gashay qaybtii hore qaybtii ku ciyaareysay marka la fiiriyo kabtan waxa uu ahaa Dani Suarez laakiin bandhiga ay soo bandhigaysa labada kooxood gaar ahaan Barcelona ma ahayn bandhigii la sugayo dabcan dadka dhan waxay sugayeen ciyaar fudud ay ahayd dadka dhan waxay lahaayeen Barca waxay ku badin kartaa 4-3 la yacni gool la mid ah laakiin ma aysan dhicin wixii la filayay ma aysan ka iman qaybtii hore runtii Barcelona waxay soo bandhigtay noocma kubad la dhihi karo waxay ahayd mid lagu caajiso fursado la'aan fursadaheedu ma aysan badnayn marka la fiiriyo aad bayna uga liitay marka laga hadlayo qadka dhexe iyo isku xirkooda inkastoo xidiguhu ay joogeen qadka dhexe ay ahaayeen kuwa da'yar laakiin Vidal ayaa sidoo kale xusid mudan inuu joogay oo dabcan ahaa laakiin waxaa sidoo kale ammaan mudan kooxda Olionesa iyaduna ciyaartay kubad ama qaab ciyaareed tactic ahaan wanaagsan oo ahayd in culays saarid qaab difaaceeda isla markaana kubadaha control attack ay ku ciyaareysay waxay taasi keentay marka in qaybtii hore ciyaarta ay kusoo gabagabowday ever nasiinada ayaa la kala aaday dabcan qaabka bandhiga ay soo bandhigayeen xidigaha Valverde dabcan aad iyo aad muusan u qancin runtii waxaan laga dareemayay caro iyo waliba dhaqdhaqaaqiisa inuusan ku qanacsanayn qaabka ay u ciyaarayeen marka la fiiriyo xidigaha Barcelona marka la fiiriyo iyadoo la ogyahay in xidiga badan ay garoonka ugu jireen Barcelona isla markaana qaarkood ay yihiin xidiga waaweyn oo laga sugayay bandhig wanaagsan laakiin ma aysan dhicin qaybtii hore ciyaarta waxay kusoo gabagabowday ever qaybtii dambe markii la isku soo laabtay waxa halkeeda kasii socday dabcan kubadaha sidii ay ahaayeen xidiga qadka dhexe oo xidigaha daada yar ayaa Barcelona ayaa dhaawacmay bedel ayaa la keenay laakiin marka la fiiriyo guud ahaan waxaa jirtay Barcelona in xidigaheeda qaarkood bandhigaysan soo bandhigay tusaale Malcom oo fursad la siiyay isla markaana la filayay in dabcan waxa uu soo bandhigo ma aysan soo bandhigin isla markaana kubada badan ayuu lumiyay gool badan ayuu khasaariyay marka laga hadlayo xitaa abuurista waa ku liitay marka laga hadlayo caawa Dembele kubada badan ayuu lumiyay waxaad arkaysaa in markuu isku dayo in dhowr qofood uu ka tago aysan u suuragelin isla markaana lumis kubad luminteeda ay aad u badnayd geesta kale waxaa xusid mudan in bedel la keenay qaybihii ugu dambeeyay oo Thermel isaguna dabcan xidig cajiib ah Lenglet ayaa sidoo kale bedel lagu keenay qaybtii ugu dambeysay daqiiqadii 9aad ayaa xusid mudan in uu kubad u soo qaaday laad xor ahayd Dembele oo madaxa ku dhuftay Lenglet isla markaana goolkaasi iyo waxba ay ku adkaatay Barcelona oo ka tagin in Barcelona kulan u dhimay isla markaana ciyaarta adag ay ka dhici doonto Barcelona iyo Catalonia ay noqon doonto mid adag isla markaana Barcelona ay shaxda rasmiga ama shaxda waaweyn ay kusoo gali doonto laakiin Barcelona ay tahay waa koox weyn laakiin marka la fiiriyo xidigaha ciyaaray waxay ahayd inay soo bandhigaan bandhig maadaama kooxdan koox heerka labaad ama heerka saddexaad ka ciyaartay tahay laakiin waxay ahayd inay soo bandhigaan bandhig wanaagsan xidigaha gaar ahaan Dani Suarez oo isagu muddo kaydka la fadhiyay isla markaana ku dhibaatooday sabcan Vidal wuxuu ugu qeylinay inuu helo waxay ahayd inuu bandhig soo bandhigo dabcan waxaad arkaysaa Dembele kubada badan ayuu lumiyay mana ahan xitaa mid la dhihi karo inkastoo Malcom uu u baahan yahay kubada badan in fursado badan la siiyo isla markaana kulamo badan uu ciyaaro si fursad u helo isla markaana bandhigiisa uu soo wanaagsanaado laakiin Dembele aad iyo aad buu maaragtay kubada badan u lumiyay runtii mana la dhihi karo waa uu mudan yahay in fursad la siiyo dabcan inkastoo qofka markuu kulamo badan ciyaaro natiijadiisu soo wanaagsanaanayso ama kubadiisu ay taa soo ronaanayso laakiin xitaa ma la dhihi karo isagoo Dembele wax badan laga sugayo laakiin haddana bandhigaasi uu soo bandhigay laakiin Barcelona guud ahaan waa badisay ka tagin Barcelona in ay tahay Barcelona akhiran waa ay noqon kartaa kulanka soo xiga insha Allah in aan insha Allah wixii dhaca aan idin soo gudbin doono laakiin kulanka xiga ay kaamno ay dabcan Barcelona shaxda rasmiga la filayaa inay la soo gasho hadii way baqadaro aad u maasantiin daawadayaal sida qiimaha leh ee aad ugu xirantiin dunida ciyaaraha tube insha Allah markale subscribe saara like riix sidoo kale riix gambalaalka digniinta si markaa muuqaal soo gurino durbo uu ku soo gaaro mar kale iyo falanqeyn wanaagsan aad u maasantiin daawadayaal